بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ganacsatada ugu taajirsan adduunka waxay yaqaanaan sirta dhaqaalaha lagu kasbado ee dadka intooda badan aysan aqoon u lahayn. Sirahan ayaa awood u siiyay inay dhistaan hanti fara badan oo ay laba laaban hantidooda ayagoo adeegsanaya xeelado ku salaysan caqli iyo waxqabad. Muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa 6 ka mid ah siraha dhaqaale oo ay adeegsadaan ganacsatadaas, adinkuna idinkugu saacidi kara inaad gaartaan guulo dhaqaale oo la taaban karo insha Allahu tacaala. aan ku bilowno sirta koowaad. Taajir laguma noqdo in mushahar oo kaliya lagu tiirsanaado. Marka aad shaqaalo tahay waxay u dhigan tahay inaad waqtigaaga kiraysanayso ama aad gadanayso waqtigaaga. Lacagta aad ka helayso shaqaalnimada waxay ku beesgaraysan tahay waxaad adiga u baahan tahay oo kaliya. Micnaha ma dhaafsiisano baahidaada maalinlaha ah. Marka si aad u noqoto hantiile oo aad u gaarto xorriyad dhaqaale, waxaad u baahan tahay inaad leedahay ilo dakhli oo kala duwan. Dadka ugu hantida badan adduunka maanta ma aha kuwa ku tiirsan kaliya mushahar, ee waa kuwa leh ilo gaar ah oo dakhli ka soo gala. Sida Jeff Bezos, aasaasaha shirkadda Amazon, wuxuu hantidiisa inta badan ka kasbaday saamiyada uu ku leeyahay shirkadda Amazon. Daraasad la sameeyay waxaa lagu ogaaday in dadka hantiilayaalka ah inay ku tiirsan yihiin markay u yar tahay 3 meel ama 3 il oo ay dakhli ka helaan. Sirta labaad, maalgashiga waqtiyada dhibaatooyinka jiraan waa fursad loo baahan yahay laga faa'iideysto. Mid ka mid ah siraha maaliyadeed ee ugu muhiimsan waa in maalgashi la samaysto markay magaalada ka jirto lacag la'aan daran ama dhibaato gaar ah. Shakhsi ganacsada ah ayaa hore u dhahay waqtiga ugu wanaagsan ee maalgashi la samaysto waa waqtiga jirto dhibaato dhaqaale ama lacag la'aan daran. Markay dhacdo dhibaato dhaqaale, dadka intooda badan waxay raadiyaan lacago kaash ah. Si ay lacagahaas kaashka u helaan, waxay ku qasbanaadaan inay xaraashaan hantidooda sida dhulalkooda, guryahooda, saamiyada shirkadaha ay ku leeyihiin iyo wixii la midka ah. Markii ay jirtay dhibaatada dhaqaale ee sanadkii 2008 waxaa hoos u dhacay qiimaha saamiyada suuqyada oo dhan. Laakiin maalgashiyaashii ka faa'iideystay fursadahaas waxay heleen faa'iidooyin aad u badan markii uu suuqa dib u soo kabtay. Daraasad ay samaysay shabakada CNBC waxay ogaadeen in maalgashiyaashii ka faa'iideystay inay iibsadaan saamiyada xilliyadii ay jireen dhibaatooyinka dhaqaale sanadkii 2008 ay heleen 35% faa'iido ka badan kuwa kale aan ka faa'iideysan. Sirta saddexaad, taajiriintu waxay iibsadaan wax qiimo leh oo dakhli ka soo gala, halka ay fuqarada iibsadaan waxa culayska ku sii ziyaadiya. Taajiriintu waxay iibsadaan waxa dakhli ziyaada ay ka sii helaan, waxa ay hanti badan ka sii kasbadaan sida guryaha, shidaalka, saamiyada, dhulalka, dahabka, mashaariicda lacagaha degdega laga helo. Micnaha mar waliba lacag gacantooda soo gasho waxay ku fikiraan lacagtaas inay lacag ka sii sameeyaan, halka dadka saboolka ah ay ku fikiraan lacagta soo gasho inay kharash karayaan. Tusaale, shakhsiga faqiirka maanta doo helo lacag xogaa macquul ah, aan dhahno $5,000, wuxuu marka hore ku fikiraa inuu gato gaari, mobile, iPhone 14 Pro Max, inuu gato dhar qurux badan oo design-ka ugu dambeeya magaalada uu ku maro si ay asxaabtiisa ugu la yaabaan, dalxiis inuu aado iyo waxyaabo noocaas ah oo aan wax faa'iido ka soo gelaynin, kaliya culayska ku sii ziyaadinayo. Dadka maalqabeennada inta badan waxay iska ilaaliyaan in lacago kaash ah ay guryahooda ku haystaan. Waxay aaminsan yihiin fikir ah lacagta markay ku agtaalo waxay u badan tahay inaad ku isticmaasho waxyaabo aan faa'iido ku lahayn. Sidaas darteed waxay inta badan xoogga saaraan lacagooda inay maalgashtaan, halka dadka saboolka muhiimadoodu ay tahay lacagta ay helaan inay ku bixiyaan waxyaabo maalayacni ah. Sirta afraad, kaydka daa'imka kaligiisa kuguma filna. Maalgelinta saxda ah waa dariiqa loo maro hantida. Inaad lacag kaysato waa arrin aad muhiim u ah, balse ku tiirsanaadka kaydka oo kaliya waxay kugu sababi kartaa khatar ah in lacagaha aad kaysatay qiimahooda ay isu dhacaan. Tusaale, waxaa kugu filan doolarka qiimihiisu ma ahan mid joogto ah, marba qiimo ayaa la sarfaa. Marka haddii aad ku tiirsan tahay kaydinta lacagaha oo kaliya, muddo kadib waxaa suurtagal ah in lacagaha aad kaysatay qiimahooda hoos u dhacaan, sidaasna adiga aad ku khasaarto. Xog laga soo xigtay Bank of America, sicir bararka wuxuu saameyn ku yeeshaa awoodda lacagta ay leedahay 3% sanad walba. Sidaas darteed, lacagta aad kaysatay inaad maalgashato waa dariiqa saxda ah ee lagu kasban karo hantida. Sirta shanaad, lacagtaada oo dhan hal mashruuc oo kaliya ha wada gelin oo ha ku maalgashan. Kala duwanaanshaha maalgashiga waa qaanuun aasaasi ah oo lagu ilaaliyo hantida. Haddii aad lacagaaga oo dhan hal mashruuc aad wada gashato, waxaa kugu filan kaliya inuu mashruucaas khasaaro, halka haddii aad lacagaaga gashato dhowr mashaariic aad u baxsan doonto, sababtoo ah mid hadduu khasaaro waxaad ku faa'iidaysaa midka kale. Sidaas darteed, khubarada ganacsiga waxay talaan u soo jeediyeen shakhsiga lacagiisa inuu dhowr mashaariic kala gashto halkii uu hal mashruuc oo kaliya wada gelin lahaa. Daraasad la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in kala duwanaanshaha maalgashiga ay yareyso khatarta khasaaraha 40%. Sirta lixaad, samayso xeer ama mabda maaliyadeed oo adag. Taajiriinta ma bixiyaan lacagtooda iyagoo aan wax qorshe ah ka lahayn. Shakhsi walba taajir ah wuxuu leeyahay xeer uu lacagta ku bixiyo.
waxaana qasaba inuu ogaado sababta uu lacagtaas u bixinayo iyo waxa uu ka faa'iidayo haddii lacagtaas uu bixiyo. Inaad lacagtaada ilaashato waxay kaa saacidaysaa inaad lacago badan aad kasbato. Shakhsiga aan lahayn miisaaniyad cayiman, aanan ogeyn qarashka soo gala iyo qarashka ka baxa, inta badan wuxuu raadiyaa deyn joogto ah, sababtoo ah lacagaha inta badan wuxuu ku bixiyaa waxyaabo maalayacni ah. Kadib wuxuu gadaal ka soo xusuustaa waxyaabo muhiim ah, waxaana qasab ku noqota inuu deyn raadiyo. Sidaas darteed waxaa waajib ah shakhsi walba inuu lahaado xeer uu lacagta ku bixiyo, si uu u ogaado lacagta uu bixinayo inay tahay mid booskeeda saxda ah ku baxday ama mid si maalayacni ah ku baxday. Intaan waxay ahaayeen qaar ka mid ah siraha muhiimka ah ee lagu kasbado dhaqaalaha, kuwaasoo ay isticmaalaan dadka ugu hodansan dunida si ay ugu dhistaan hanti fara badan. Ku dhaqanka sirahan dhaqaale waxay kaa caawin karaan inaad gaarto guulo dhaqaale oo aad horumariso hantidaada. Mid xusuusnow in maalgelinta mashaariicda kala duwan, lahaanshaha xeer adag iyo qorsheynta dhaqaale ee wanaagsan ay yihiin aasaaska lagu dhiso hantida. Guul ayaan idin rajaynayaa. Asalaamu calaykum.